magacayga waxaa la yihahdaa Abu Maxamed Aljawaad Alcuqayli. caqabadihii ka waran muqaaxiyaan fadhiisan jiray in muqaaxiyi la yidhi xitaa wax shaahan kaa gadayn mala ma jirto meesha baa laiga caydhiyey. shiikh Soomaali ah oo shiica ah maad ka qaad shiicanimada. Sheekh Faarax soo dhawow mar kale waxaan rabnaa horta inaan barano Sheekh Faarax. Sheekh Faarax waa kuma? Sheekh Faarax ama Faarax Ibrahim sheekh miihi magacayga waxaa la yihahdaa Abu Maxamed Aljawaad Alcuqayli. Faarax Ibrahim Faarax Ibrahim wuxuu ku dhashay ama uu ka soo jeedaa gobolada Soomaalidu ay degto gobol ka mid ah oo la yaqaan la dhaho gobolka Qoraxi ama xaruntiisa caasimadda ay tahay magaalada Qabri Dahar. Faarax waa qof reer baadiye ah. waxaan ku dhashay baadiye waxaan ku soo barbaaray baadiye anoo yar oo 5 sano aan gaadhin siday hooyada ii sheegtay ayaa waxaan bilaabay quraanka kariimka. waxa ay bilaabay macallin reer koonfur ah oo ka soo jeeda gobolka Bakool oo la yiraahdo macallin Madnuur ee quraanka kariimka ay bilaabay. ma sha Allah ardaydii markaa dugsiga la geeyay qofka ugu da'yaraa ayaan ahaa. da'daydu 5 sano markaa ma gaadhin hal gabadh iga weynayd oo curad ah oo loo yaqaano Fatima loo yaqaano ama fiican la dhaho walaashay ah. ma sha Allah asalaamina gabadhaasi waxay ii ahayd oo kale hooyo kale iyo aabbo siday waalidkay ii sheegeen iyadoo 2 sano iga weyn ayay xambaari jirtay qof xoog leh oo ma sha Allah si fiican waxay ahayd waalidkaanaga kaafisay oo reerkoo dhan kaafisay. quraanka kariimka marka anoo yar oo meelaha 6 sano ba gaaray waxaan gaaray kala barka quraanka kariimka in quraanka kala baro suurada subxaan xoolo la iga bixiyo sanadkaygii 6aad ba ii ahaaba 6 sano markay ahaydba hal sana ma kala barku gaarayba muddo yar oo bil iyo gudaheedana waan farbartay. ardaydii oo dhan baa sidaa macallin si fiican quraanka u yaqaano dadkana quraanka barahayay aha kaliya ardayda waxa igaga quraanka kariimka suurad ama 2 iga horeeyay abtigay oo hooyadii walaalkeed ahaa loo yaqaan Sheekh Cabdiqaadir Jeelana ku magac dheeraa. ma sha Allah kana salaamin nacaalim oo hadda kutubta aqriyo Qoraxi jooga marka iyada kabacdi reebaadiyaan hayno reer guuraa abaaraan nagu dhacay wuu kala fakaday dugsigii reerkaanagina curad baan noqdo aan anigu markaan 6 sano 7 sano soo gaaray waxa lagu bilaabay 6 sano sanadkii ay xoolo raac baa lagu bilaabay geel jiraan noqday maxaa yeelay curadka reerka anigu ahaa inaan geelaanagi dhaqaaleeyo oo xoolaha anagina loo maro ayay noqotay. muddo kabacdi sanadkii laba markay ka soo wareegtay hadana dugsi kale loo qabtay sheekh Bashiir la yiraahdo asaguna abti iigu aadan hooyada ilma adeer koreeyeen ee dugsiga noo qabtay. sheekhaasi wax badan buu naga dhis quraanka uu gadan noo soo bilaabay hadana mar le iyo kutub yar yar oo noo aqriyay kitaab loo yaqaano Hayatul Islam oo kale kitaab loo yaqaano Durratul Bahiy oo kale Riyadul Badiic oo kale Safiinihi oo kale ayuu dugsigii noogu dhaxwaday. way indadaan muddo ka bacdi isaguna dugsigii sheekhuna wuxuu ka yimid marka iyada dhinaca dawladda Soomaaliya ee burburtay xageedu ka yimid. markuu sheekhi asaguna fatra naga soo naga kala go'day kadib hadana abtigay oo hooyadii walaalkeeda oo sheekha Sheekh Cabdiqaadir leeyahay hadda kutubta aqriyo walaalkii oo isaguna Soomaaliya wax ku soo bartay iyo quraanka noo bilaabay muddo yar ka bacdi quraanka baan dhameeyay markuu asagoo noo bilaabay abtigay Sheekh Nuur 3 macallin baan marayaa ninka quraanka marka dambe sida fiican dhidi badan noogu aasay ee noo fadhiistay aha aftigay buu ahaa quraanka nabaro anaguna aan aqliyaysanay dayrtii la dhihi jiray 97ka ama loo yaqaanay dayrtii biyaha badnayd aad u biyaha badnayd dayrta aakhirkeeda oo sanadii aan 98 ka soo galeynay yaan quraanka kariimka dhameeyay intiisa badan oo ku celceliyay oo quraanka kariimka waqtigaasi aan xifdiyay. ardaydii markaa dugsiga dhigan jirtay aniga iyo sheekha abtigay Sheekh Cabdiqaadir la dhaho yaa ugu horeynay aad baan u subcin jirnay abtigayna wuu nala subcin jiray. waxaan garanayaa habeenada ka mid ah quraanka isagoo maray suuratul racdi iyaan suuradii horsigeedii baan aniga sheekh kale yaraa abtigay ahaan quraanka dhiganayna waan la garan marnay kaliya inaan gafnay ma oo yar daba marnay suuci halkii ku jooji macnaha quraankan saa idin soo baray inaad gaftaan ee bay idinku tahay kabacdi quraanka kariimka waan iska dayaanay inta kabacdi wixii waqtiga iyada quraanka dhameeyay aan ka dambeeyay waxaan bilaabay xirnimo iyo cilmi yeesho ugu horeysan ka bilaabayna waxay ahayd awalkii 2000 magaalada loo yaqaan Qabri Dahar waxaana ii bilaabay sheekh caalim ah علامة ولو يقانو شيخ يوسف بلحن وهذا بدنا كشكينا المغلا وذلك لو يقان الشيخ عمر حتى شيخ يسيبوها وحب الله بواجه هره
kabacdi culimo kale wax ka dhageystay sheekh mahad baa igu xigay kadib waxaan soo galay magaalada muqdisho 2003 dhamaadkeedii foogii dagaalka Ciraaq oo socdo علماء فربنا وكان حكى دقيستي الله ونحرسته شيخ محمود علي العيسى كم منها شيخ بكر حسن هذا الجوع كم منها شيخ محمود داير إن شيخ أحمد يرالي هذا كم منها ولو الشيخ شاكر با كم منها ومساجد السجو وهي مركزي قعدت وكوي حتى رجي ودي بي وضياش هذا وقت أيضا كم منها شيخ وين وهايسني هاي كم منها بعد ما المعد كبر بمقدشو بعد كمان دميي كبعدنا aqoonta idu inaan si aado oo wadanka ka baxo oo jaamacada iyo si aado wadanka qurbihiisa ka baxo aan aado ay ahayd Puntland baan macallin ka noqday macallin iskuul ka noqday iskuul yar Usama ibn Zayd la yiraahdo ka furay aniga ma sha Allah iskuul kale oo ku yaal meeshan macallin ka noqday waxa isaameeyay fikirkii ugu horeeyay dagaalkii dhaxmaray ururka Xisbullah iyo Israa'iil dhaxmaray تايدون أركاي علماء فربضن وفكر كان صحابي وهابية لو يغان وأد وقتها ولا صفتي قال هذا أنا أد حقه وأد ميريسي إنه أدن جاران إنك استورك فربضن ووقتها كسر جدي هاين كبعد وقتها واحد جرو إن صحني إنتان قتي أن هلا قناة اللي هذا قناة المنار وأورك حزب الله وسكيله وسيد حسن نصر الله وقولها قناة كايسوهم أدو لقي سنجري وحي إسلامية كومات هالكاسوها saameyntayda waqtiga iyada ilaa 2006 bay soo bilaabatay laakiin waa dhaweyto aaban la jahraba oo waqtigan la jahrayay dheeraanin oo 2014 iyo 13 iyo dhexdooda ha ahaato laakiin waqtiga saameynta ugu horeysay igu yeelatay waqtigaas meesha ka qaadatay sheekh Soomaali oo shiica ah maad ka qaadatay shiicanimada ma sidaa sheegtay waa hay ma wax sheekh oo aan ka qaatay ma jirin baxthigayga iyo baaridii aan anigu sameeyay baa ii geysay halka iyada هذا وما سنتهي وافهني وبرني شيخ فارح وحاربنا عقبته كورن soo biirida shiicanimada Soomaalida aad ugu adagtay dhaxdeeda wax kasto cusubna waa ku adag yihiin ka waran wal soo biiridaydu waxa weeyo anoo macallin dugsiyo meel wax ka dhigdhigo ayaan la jahray halkan oo aniguna aan lahayn goobtii iyada ahayd waxaan ka qaadan jiray 25 kun wax ka yar bahayd oo Kenya usradayduna reerkaygu marka iyada maana sii cuslayn meeshii la iga ceyriyay markii la igu arkay afkaartaydi meeshii 100 shilin oo meel iga soo gelina mayna jirin maana joojinina shaqadaydi iyo la jaharkaygi iyo hawshaydi taxamul baan u sameeyay kadib waxa igu dhacay muqaaxiyaan fadhiisan jiray in muqaaxiy la yiri xitaa wax shaahan ka gaday ma jirto oo la idiiday kadib meeshana waxaan ka asaasay wax loo yaqaano Xuseyniya ama xarun yar oo ku taalay Bangani sanadka goor Karim House 2014 okay 14 bilowgeedii meesha markaan ka asaasay Xuseyniyada iyada arrintaanadina la maqlay oo magaalada ku jirno oo doodaha anagii oo WhatsApp-yada iyo ka doodno Facebook iyo la arkay dad fara badan baa yimid dadka fara badan waxay u badnaayeen culimada loo yaqaan wahabiyada ama ictisaamka iyo culimo suufiya la yiraahdo aad u fara badan baa yimid iyagoo markaas hadafkoodu uu yahay dhaqaale raadis meeshan waxaad ku qabtaan ala rabno culimada markay muddo nala joogto ay hareeraha naga fadhiistaan oo ina arkaan oo nala joogaan oo manhajkaaniga iyo madhabkaaniga aan u sharaxno oo arkaan koox baan nahay markaa aan anigu ugu daaweynahay laakiin dhalinyaro yar oo kale oo orodiyahana xitaa wadamadan iyo Afrika ka ordo oo Soomaali ah yaa nagu jirto marka aad iyo aad fikirka iyagoo wato aniga ii yimid oo shiica laakiin caruur yar ah aadna orodiyahana oo ah yaa nala joogo rag kale oo Ingiriiska ka yimid oo marka noo yimid oo nala jooga jiro wiilal kale oo halkan taksiilayaal iyo ka ahaan nagu soo biiray baa jiro kuwa kale oo koox badan baan ahay markay nimankii noo yimaadaan qadam ma haysano oo quraac baa noo goyso oo cashan noo goysa way la yaabeen oo kiradii meeshaan lagu leeyahay 5 bilood iyo 6 bilood baan lagu leeyahay oo yaaban yihiin rag intooda badan markay arkeen meesha inay waxba ka jirin waa carreen rag laakiin lagu sabray oo nala joogay oo waxaan ay caqiido ka ahayd yaa jiro waxa igu darnaa oo hawshaan naga carray wadaad ka soo jeeday magaalada Raasa oo reer Qutub ahaa nin yar oo dhalinyaraha marka iyada oo haddaba jooga magaaladan oo yuushac la yiraahdo rag nagu qalqaalisana ah marka iyada dhex joogay ah subaxu naga siibtay aan weynay oo dhalinyaradan aan lahayn bal duruus yar waxa uu aqriyo yaa naga siibtay naga carray maxay yeelay dhaqaalihii uu meesha u soo doontay weedka meesha male
waa gartay reer ahaan waana ka raaligelinaa ma ahayn inaan reerkaaga dhex galo laakiin xaaskaaga iyo familkaaga hoose markii aad soo gashay yacni iyadoo shiicaamiyad ku guursatay mise adiga shiica ka dhigay maya aniga unbaa saameeyey mayna ahayn dhibaato badan baan ka maray waxaa jira waa dhexdaasa oo baan aad u sii dheerayn oo adugu 2018 dhammaadkeeda ilaa aan u malay 19 inay ahayd ayaa gabadhayda dad la dhashay oo barkoodna ay walaalo yihiin barkoodna ilmo adeer yihiin yaa la yidhi hawshii markay weynaatay oo la arkay oo annagu aan markaa tasakhnay rag odayaal aan nahay oo midka shiiciga ka imanaya Mareykanka iyo midka ka imanaya aanu samaynayo iyo midka ka imanaya Jigjiga iyo midka Qabri Dahar ka imanaya iyo midka Xamar ka imanaya iyo midka Lubnaan ka imanaya iyo dhalinyarada meel walba ay tagtay ya wadaadeen hadda Soomaalida halkan joogta kamid ah oo la yiraahdo Sheekh Shibili baa lagu dacway wadaadkii oo xafiis ku leh magaalada xaafadan la yiraahdo gurigan la yiraahdo Isliim Mall ee meesha la igu yeeray gaari baan lahaa gaarigayga baan soo qaaday iyo soo qaatay waan soo yardaahay gaarigii baan baakin galiyay gabadha xaaskayga ahayd anoo watan ula imid oo la leeyahay ninkan waa gaal gabadha waan ka furanaynaa markaan meeshii soo fadhiistay magaaladan qaati waxa ka nin la yiraahdo Suqyaan waqtiga iyada in Cabdirashiid la yiraahdo hore u ahaa Cabdirashiid uu ka tagay oo baagari aha ninka marka Suqyaanka meesha joogo markii wadaadkii aan meesha la soo fadhiistay wadaadkii wuxuu ugu bilaabay handadaad iyo weerar aan caadi ahayn anigana waligayba qof handadayba il shayda kama leebirsaninba wadaadkii handadaadii markuu bilaabay intii uu yiri in la eg iyo ka daran yaan anigana shabiri marka waxay isku leeyihiin xaaskaaga saamiya maya isagoo isku xaaskayga ma ahay wiilashan isaga u yeedhay bay xaaskayga isku family hoose gabadh xaaskayga walaasheed ana markaa way la socotaa markaan meeshii fadhiisanay wadaadkii uu handaday oo wadaadkii aan iska hornimid oo si daran aan iskaga hornimid aad u adag su'aaluhu i weydiiyay wadaadkii waxa kamid ahayd maxaad ka aaminsan tahay Abubakar iyo Umar maba aaminsani baan ku iri ma rumaysi ما أركان الإيمان بو أبو بكر كمل يهم بس أركان الإسلام بو كمل أو أركان الإيمان أركان الإسلام بنا ميزانية كمل معه فبيهتل الذي كفر وذلك القصو قف بالي مثلا ذا أيضا وحجري ما حد كأمن سنتهي قرآن كريم قرآن كريم ما أنت وحنلاها مكتبتها نيروبي كجرو مكاتب تقوي وأتحداهم وليبا وحن كبرنا يعني من كجوج سيجس يا الله هداية هدي أود الله هنا أضياش هنا يلا دوضان فن والبوع عقيدة وما تأشي على هذا مكتبة يدوا كلهم مستري مع كان من سنة يقول مرك كقطع كتابك القرآن كتابك القرآن وحنقول إلهي با كملي إلهي با إلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون إلهي با قرآن سود إلهي با حفظي ها كتابك القرآن وتبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين للمسلمين يقويه بشارة هنون بويه كتابك واساسي هذا مثلا لا يدا ما أمسن علماء دين واحد ما أمسن يدي أنا ما أمسن تو حنقول علماء دين النبأ واحد يدا ما أمسن إن القرآن كتحريف يتبديل يتنقص وكبع بخاري مسلم كي قتال الله أو إحنا مثلا تحليل لنا إنتان فريسا هوش هذا مركا وأتكاتي ومسألة أي ولادك الناس يقول بسي مسألة ولادك عدك إن هلي كران رجينيا عد بان كدوبي مالك أيضا نكتي ويرش كانوا عود بيدوبان عدك كودينا وحان كور هيا إني سيد أي توران مركا أركان ولادك ضد أي بين عيسى كجنجار ستاي أو أي كوسي حتى أي أركان إني توران لكن أنا إلى وقت قاس إذا ضد نرح مرتي عدك وان هيا ولادك مركا وحيقول سؤالي لبوي إن عالمه وشيخه اللي هذا أبو الحسن الشيخ محمد علي الجبرتي وهذا كثير عنه بدن ومركا مرتنو أها إيو نيرو كرو أنا جو أنا لي أما أنكر صديبة المهيجة اللي هذا محمد أحمد عبد الله لما أنه على يرضى كان هذا مجال كشقيه كان عصدا أنا وسوكر صدي المهيجة أنا لي لما داس من سعته يعني doodina aan marka iyada saacad iyo ka badan ay qaad wadaadki markay labadii wiil iridda ka soo galeen oo mid buu garanayo de Facebook-yada iyo waxyaabaha ku badnaa sawirkiisa qaylo afka ku dhuftay qayladii uu ku dhuftay
waardiyadiisa banaankaaba soo istaagay waa maxay marka wuxuu yiri ninkanaaba awal horaba meeshan kugu taagnaa masaabiir kale ayuu u yeedhay oo ku durayso arintii wadkii markuu qeylay wuxuu orday dhaaf anu qaadi ma ihi qaadi baa jiro qaadiga aad hawshiyeeda halkii bay ku burburtay anigana sidii baan aniga reerkay ku noqonay oo ku nabad noqonay ila dambe oo marka iyada noo timid oo fara badan oo dambe way jirtay laakiin in la gooyo ma dhacday oo gurigaagii reerkaaga la gooyo ehelkay gooyaan 100% boqolkiiba laakiin haba yaratay ma saamayn wan lahda daqiiqad ma saamayn mid ayada maxaa yeelay ibnu aadam ba waligay waxba ogama baahanin qof noloshiisa qofku markii la gooyo oo la dhaho hijraan lagu sameeyo in laga hijroodo iyo wal infisaal in la sooco qofkii oo laga hijroodo markii la sameeyo kaliya waxa ciladu uu dareema ama xanuunku uu dareema markuu dad ku tiirsanaa laakiin marba haduu aha qofku uu cuni jiray waxa uu gacantiisa kula soo baxo wax dhibaato ma yeesho marka wax dhibaato taa igu yeeshay waa la igooyay dhibaato fara badan baa igu dhacay taa iyada la igu sameeyay laakiin waxay i yeeshay haba yaratay ma jiro hadda waa sidee xaaladda dadka bulshada ma kula qabsadeen muqaxihi iyaga aha ee waaga la dhihi jiray intii la isoo waco yaa wixii la doonana hoo qabsan la yiraahdaa xaquna maca shiica inuu yahay baan ognahay la yiraahdaa hadaan ayaga la iga yeerin on la dhihin caawa anaga nala afur caawa anaga kan noo samee caawa anaga muqaxiga waaga iyaga way moogtaa uma ay dadka iyaga si fiican aad u mahadsantahay intaan ku soo afmeereynaa inta ay bulshada Soomaaliyeed ka soo falcelin doonaan aad u mahadsantahay sheekada jazakallahu khairan assalaamu alaykum